laanta afka Soomaaliga aan siiyay aniga wuxuu ahaa eeyo ayaa waxay soo weerareen xaafadda la yiraahdo Waxar Cadde oo magaalada banaankeeda eeyahaas ilmaha cunay ilmahay qaniinayeen ilmaha markay qaniinaan ilmaha raabiya ku dhacaysa cudurkan rabies-ka la yiraahdo ayaa ku dhacaysa oo markaas dawadeeda aysan oolin dalka markaas dadka samafalayaasha ah dadka wanaagsan oo caafimaadka ka shaqeeya loo gurmanayay aniguna waa inaan ka warramaa marka waxyaabaha aan jeclaysa waxa kamid ah wiil yar oo 8 jir meelahaas oo isbitaalka ugu tagay oo ilmaha ay eeyaha soo qaniineen kamid ah ayaan waxaa yiri adiga maxaa dhacay eeyga muxuu ku qaniinay markaas wuxuu yiri adeer aniga eeyga aniga kamid ma ahayn xataa caruurta oo eeyaha tuuriyaysa ee ka daba orada kamid ma ahayn eeygaas wuu iska ka gardaraystay aniga xaafadayda iska jooga uu yimid way qaniinay marka waxay ahayd waxyaabaha aan aad u xasuusanayo canugaas yarka sida uu wax u cabirayay oo cadaalad ka raadinaya xataa eeyaha inay u cadaalad falaan oo ay qaniinin maadaama asaga uu ka mid ahayn kuwa tuuriyaynayo dadku waxay yiraahdaan xasan Maris wuxuu soo koriyay waa siday hadalka u dhigeen waxaa jirta mahmaha Soomaaliya ay tiraahdo fulay hooyadiis ma gablanto laakiin reer xamarka waxay yiraahdaan biiq 100 sano gaaraa fulay 100 sano gaaraa macnaha ma dhimana waa ka dhuumana ya hooyadii ma gablanto laakiin waxa weeye hooyadii laga hadlaya isaga laga ma hadlin maamada reer xamarka qofkii ka hadlaysa biiq 100 sano gaaraa marka erayada la midka ah waa sidii hadalka u dhigeen waxa weeye waxa diidaysaa waxaasna inay run ahayn wad ogtahay hadana ma dhihi kartid run ma aha marka isaga yiri hadalkaas ayaan aniga la ii soo raacanin run ma ahane way waxa erayada ay kugu beerayaan inaad ahal abuurto si aad u taxadarto afafka kalena way leeyihiin kulligood marka waa sidii hadalka u dhigeen meeshaas ay nooga timid oo ay ahayd is ilaalinta iyo taxadarka iyo iska bariyeelida warkaasi inuusan sax ahayn aad ku muujinaysid hadana aadan afka ka dhihi karin sax ma aha marka dhacdooyinka kale way badnaayeen kama warrami karayo waxaan maalin walba sheegay abaara dhacay daadad baa dhacay midalan waxyaalahan bartay barigaas waxa kamid ah markaan ka hadlayo waxyaabaha dabiiciga dhibaatooyinka dabiiciga musiibooyinka dabiiciga markay dhacayaan waxa jirta magaalo la yiraahdo Sablaale sanad baa waxa qaaday dab iyadoo dhan dabkiya gubay magaalada dhan asaa laga baxay markaas haddana dabkii markuu ka damay ay haddana soo noqdeen haddana dib bay waxay u yabyabteen aqalla yar yar waxbay dhisteen markaas sanadkii ku xigay haddana daad ku yimid wabiga markaas haddana magaaladii daad qaaday marka nin kamid ah cuqaasha magaalada oo la hadlay yaan waxa raadar bal waran see wax idin gaareen see wax u jiraan markaas wuxuu maandhow dabna aragnay wax bani aadam lagu halaago oo biyo ka xun ma jiraan marka adigu hadda dab iyo biyadii la isu ka agdhiga waxaad isdhihi lahayd yaa biyaha roon ya laakiin odagaasi maalinkaas waxaan ka bartay inay biyuhu ka daran yihiin dabka wuxuu yiri dabku markuu guriga ka qabsado waxaad ka soo booboobi kartaa intaad ka soo boobobtay ilmahaada yaad banaanka intaad ula soo baxday geedka hoostiisa ilmaha wax ugu karsanaysa laakiin biyuhu meelnaba kaaga harimayaan